بلونه بسم الله الرحمن الرحيم halkan maanta waxaan ku shaacinaynaa ama ku soo bandhigayaa koob aan qabanayo oo lagu qaban doono gobolka Gabiley haddii Ilaahay yiraahdo koobkan waxa ka soo qayb gali doona 8 kooxood ayay ka soo qayb gali doona oo sareeya 8 kooxood waxay ka kala imanayaan Hargeysa 4 kooxood ayaa ka tagaya Boorama waxa ka iman doona haddii Ilaahay yiraahdo 2 kooxoodna Gabiley haddii Ilaahay yiraahdo ayuu markaasi ay ka iman doonaan koobkan waxaan ku xuseynaa Cabdilaahi Suldaan Timacade oo ahaa markaasi nin runtii gabaya caan ahaa oo markaa gabayadiisa aad iyo aad wadanka iyo dalka iyo dadkaba wax u tariyay runtii gabayada lagu xusuusto waxa kamid ah gabaygii ahaa dugsi mala qabyaaladii waxay dumisay mooyaane 1960gii markii Soomaaliland ay xornimada la soo noqotay gabayadii uu tariyay isna waxa kamid ahaa aan sidoo yahay eegne ka nasiib ka nasaar sareeyo ma nusqaamow aan sidoo yahay eegne ka nasiib ka nasaar halka waxaan ku soo bandhigi doonaa gabayadiisii waxtarka lahaa ee dalka iyo dadkaba waxtarka u ahaa runtii koobkan wuxuu noqon doonaa koob si fiican oo wanaagsan uga dhaca gobolka haddii Ilaahay yiraahdo koobka marka waxaan ugu tala galnay 4taasi Hargeysa 2 Gabiley iyo 2 Boorama wuxuu insha Allah wuxuu dhici doonaa November 10keeda inaan markaa koobkaasi aan bilowno ayaan rajaynaynaa waxaan ku wargelinaynaa markaasi cid kasta oo ka soo qayb galisa inay markaasi ay ka soo qayb gasho assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh koobkaana maalgeliyay ana dhigaya horena waan u dhigi jiray oo gobolka inaad ka waraysaan malaabiriga wada yareereedeen waan dhigi jiray oo dhowr jeer hore gobolka waa lagu dhigay koobkan marka kanna waan u dhigaynaa haddii la yiraahdo